akhriya adduunba saasay faa'iidadu ku jirtaa. waxaan rabaa markaa laba qodob oo qura inaan tilmaamo. labada qodob waxay yihiin ramadaan kow waa bil qofka muslimkii uu u diyaar garoobo inuu dembiga iska reebo. waa bil uu u diyaar garoobo qofka muslimka ah sidii sanadka ama cumrigiisaba intii tagtay dembigii soo raacay uu isaga maydhi lahaa. hami lmakfira waa inuu ku noqdaa agteenna hami aad u weyn. waayo dadku saxaabada matala nebigu calayhi salaatu wasalaam baa nin u yimi saxaabiyi, markaasuu wuxuu yidhi nebigu markuu ka warramay jihaadka iyo aliimaanu billaahi iyo in la jihaatamo iyo acmaasha ugu fiican inay tahay, ayuu wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow haddaan dagaal galo oo jihaatamoo lay dilo dembigayga ma la dhaafayaa? dabeetee nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nacam in qutilta fii sabiili illaahi wa anta saabirun muxtasibun, haddii aad dhimato ilaahay dartii jidkiisa lagu dilo adigoo sabraya oo xisaabsanaya oo soo jeeda waan dhabar jeedin oo sii ordaynin haddaad sidaa ku dhimato haabuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. ninkii baa haddana uu nebigu su-aashii dib ugu celiyo markaasuu yidhi kayfa qult, maxaad igu tidhi? ninkii baa warkiisii ku celiyey, waa dembigayga ma la dhaafayaa haddii aan dee jihaatamo geeriyoodo? nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi haa waa la dhaafayaa. intuu intii hore u sheegay buu nebigu yidhi ila dayn mooyaane. daynta bini aadamka xaqiisa inta laga qaato loo indhacaseeyo kaa isaga la dhaafi maayo. jibriil baa hadda ii sheegay buu nebigu yidhi. xadiisku saxiixu muslimku ku yaalla. idan waxaad arkaysaa saxaabadani hamigoodu inuu ahaa dembigayga ma la dhaafaya. waxa uu raadcaynayaa waxa weeyaan xataa jihaadkan iyo baabkan oo dhan inuu dembi dhaaf helo. si awgeed ba ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa duul kale oo muslimiinoo hamigoodu ka ahaa. fircawn saxaradii ka hor timi ee nebi muuse markii mucjizaadkiisa ay arkeen ilaahay rumeeyey, fircoon waa hanjabay oo wuxuu yidhi waa idin laynayaa, gacmaha iyo addimadan talantaa laydin goynayaa oo waa idin salbinayaa, geedkaan idinku xidhayaa oo saasaan idin gelayaa buu ku hanjabay. waxay iyaguna ugu jawaabeen saa qur-aanka rabbi ku tilmaamayo qaaluu laa dayra inaa ilaa rabbina munqalibuun inaa naطmacu an yakfira lana rabbuna khataayaana an kuna awala almu'miniin. dhib uma aragna bay leeyihin waxaad sheegayso oo dhan, ilaahay xaggiisaanu u noqonaynaa waayo waxaanu rajo ka qabnaa bay leeyihin in ilaahay dembiga iyaga dhaafo ayaanu rajo ka qabnaa maadaamaanu noqonnay awala almu'miniin. xadiidka iyo aayadda qur-aaniba waxay tilmaamayaan marka hamu lmakfira say dadku uga fakerayeen dembigooda inaan la dhaafo. waxay dhaafsanayaanna uu yahay inay naftooda waayaan. haddaba ramadaan waa fursa qaaliya oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay waxyaabaha koowaad ee ramadaan laga helaa inay tahay meel dembiga qofku iskaga maydho. misfaat uu qofka muslimka ahi xamaamu dembiga iskaga maydho, uskagiisa uu ku reebo. si awgeed baa axaadiista saxiixeynka ku soo arooray wuxuu nebigu tilmaamayaa man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi. qofka ramadaan sooma isagoo rumaysan alle iyo rasuulkiisa iyo aakhire iyo ajarkeeda iyo wixii la faroo dhan isagoo rumaysan, waxtisaaban ilaahay dartiina u soomaya. casrigan aynu maanta nool lahay dee soonku waabu iska tiro badan yahay isagoo noocyaa. soon siyaasiyaa jiro la yidhaahdo dad baa dowladda ka hor yimo afkay xidheen oo cunnaday ka soomeen si ay qadiyaadkooda u muujiyaan. soon baa jira dadka badh la isku dhuubo la yidhaahdo miisaanka si looga rido intaas inaanu wax cunin. soon baa jira xataa kuwan ay yidhaahdaan malikaatuljamaalka iyo waxa kan aflaamta dhigiyo kuwa kan la soomiyo oo la rabo qurux inay ku yeeshaan. laakiin kani waa soon ixtisaab ah, soon danta laga leeyahay ay tahay in ilaahay dembigaaga ku dhaafo. soon dantiisa koowaad iyo qaradku uu yahay iimaanan waxtisaaban. wuxuu nebigu yidhi gufira lahu maa taqadama min dembi, kaa waxaa la dhaafaa dembigiisii hore. markaas haddana mar labaad nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi. ninka ramadaan kaca ee tukada
iyadoo shardigii weli uu yaallo iimaanan waxtisaabana gufira lahu maa taqadama min denbi dunuubtiisa wixii hore uga dhacay baa la dhaafaa haddana mar saddexaad buu nebigu wuxuu tilmaamay habeenka leylatulqadriga ninkii kaca ee iimaanan waxtisaaban la yimaada salaad tukadoo cibaadaysta ixyaa sameeyo nooleeya gufira lahu maa taqadama min denbi idan saddex shay buu nebigu tilmaamoo ramadaan ku jira oo saddexdaba dembi dhaaf lagu helo midi waa soonkii maalinimo la soomayey midna waa habeenkii wixii la tukanayey midna waa habeenka leylatulqadriga oo si gaar ah habeenada kale uga mudan oo sanadkao dhan dee habeenka ugu fadli badana saddexdaa shay bay ramadaan wadataa oo saddexduba yahay in dembiga lagu dhaafo saa awgeed buu nebigu